cabdinaasir sharmaake intuu meel soo fariistay ma dhalin ma dhihin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داوضيال ميل كستو هذا دونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وبرت يوتيوب كأن كلنا هاي بروان جنال انت او سعودو برنامج كأننا واحد كو داون دونتان داهر على سو او كهدلي كلا تقا اي كلا تقين مليون مانكا يولي بشرم بوي مليون مانكا ايا waxa ay si caara leh uga jawaabtay daahir cali sow markii ugu horeysana waxa ay ka hadashay kala taga ay kala tageen sharma boy daahir cali sow ayaa waxa uu sheegay in sharma boy dalka uu aaday ee Afrika uu tooray ku soo galiyay wiil halkaasina uu ka soo cararay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena inta uu socdo aad ku daawan doontaan daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka aad like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka مليون مانكا ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay kala taga ay kala tageen sharma boy waxa kale oo ayna jawaab culus u dirtay wariye daahir cali sow hadaba waa kana ee wax yar ila daawada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada muslimiinta meel bay joogto waxaan leeyahay Ramadan mubaarak Ramadan kariim in sha Allah soonkiisa kale barwaaqo bashbash iyo caafimaad intii dhimata Allah u naxariisto inta noolna naxariista rabbi u baahin Allah siiyo waxaan rabay arrin yar inaan ka hadlaa rabay maanta oo social media hadeer dhow aan ku arkay horta dadka dhan way u yihiin daahir cali sow sharmaake inay ma arkino dad ma arkino day isdagaalsan yihiin halkan waxaan rabaa daahir cali sow inaan laba arrin aan ka dhaho ani midda koowaad waxa waaye cabdinaasir sharmaake intuu meel soo fariistay ma dhalin ma dhihin ma fahanti midda labaad waxa waaye intaad ma arkino sawir ah soo dul saartay iyo waxa soo dul saartay kulli warka aawdi meel ka keentay aniga ma sheegi karin ee meel kala timi laakiin cabdinaasir sharmaake ma dhihin ma dhalin alxamdulillah aabis waaye wiilkiisu jecel yahay inuu ku faraxsan yahay waana curadkiisii marka abti adiga meel ka keensatay waxaan aan sheegaysid oo dhiigu ka baaraya iyo DNA uu ka baaraya iyo maxay ii sheegeen waxaas meel ka keensatay horta aniga ma sheegi kari laakiin waxaan ku sheegayaa wiilkayga yarka oo saqiirka oo maskiinka ah waxaan wadid iyo balaayadan wadid ha soo dhixgelinin mideeda kale sharmaaka nin raga waayid hada jaanis ku raadinaysid waa nin raga iska cili laakiin aniga iyo cunugan yarka hana soo galinin badahaaga iyo afaarahaaga dadka calafkooda uu dhamaada waa la kala tagaa wax weyn ma ahan ilma la isku haayaa dad ilma isku haayaan aniga sharmaaka ma kala go'no laakiin adiga ha isceebayn nin weyn aad tahay maradu ay ka dhicin xishood waa laga xishoonayaa jawaabtaas ayaa ka dhalatay kadib markii uu daahir cali sow uu xalay bartiisa YouTube-ka uu soo dhigay muuqaal uu uga hadlayay sharma boy iyo waliba milyan maanka daahir cali sow ayaa waxa uu ka hadlay qodobo aad u fara badan oo ay ka mid tahay in sharma boy saaxiibkiisa khiyaanay uu yahay maslax mideeye daahir cali sow ayaa intaasi waxa uu raaciyay hadalka sababay in ay jawaab culus ka soo bixiso milyan maanka hadalkaasna waxa uu yahay sharma boy in aysan u dhalin wiilka milyan maanka ayna u dhashay saaxiibkiisa ay dadka qaar aaminsan yihiin inuu khiyaanay ee maslax mideeye ilaa ay hadda warkaasi lama xaqiijin karo laakiin hadalkaas waxa uu baraha bulshada ka dhaliyay cara aad u fara badan dadka qaar ayaa daahir cali sow ku taageeray halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen haddaba waa kana daahir cali sow oo ka hadlaya wax yar ila daawo wiilkii raabarka ahaa ee heesaha raabka qaadayay ee sharma boyna markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay inuu furay gabadhii uu qabay ee milyan maanka si toos ah ayuu u soo galay TikTok-ga isagoo caddeeyay in gabadhaasi ay kala tageen laakiin kala taga gabadhaasi waxa sababa ayaa la yaab leh sharma boy ma uu qarsan waxa sababay in xaaskiisii uu furo waxaana arrintaasi lala xiriirinayaa kiis ku saabsan William maslax mideeye oo fanaana halkaas kiis ka dhashay darteed ay u kala tageen sharma boy iyo gabadhiisii wuxuu sharma boy oo muuqaal kala soo duuba sheegay in uu qiyaamay saaxiibkii maslax mideeye hase yeeshee wuxuu ku goodiyay ama uu ku hanjabay in arrintaasi ay wax walba banaanka imaan doonaan marka uu tago dalka Djibouti sharma boy ayaa la rumaysan yahay in markii uu ka qayb galay dib u doorashadii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle la siiyay baasaboorka dalkaas hase yeeshee asaga iyo saaxiibkii
maslax mideeye ayaa waxaa soo kala dhex galay kala shaki kadib markii Sharma Boy uu aaminay in cunuga yar ee loo dhalay uu yahay cunug uu isaga dhalin oo uu dhalay wiilka kale ilaa maslax mideeye lama rumaysan karo DNA-da sidoo kale gabadhaasi ay kala tegeen mataqaana Sharma Boy ee la yiraahdo milyuunmaanka waxay caan ku tahay gabar wanaagsan oo asluub badan oo dhaqan fiican oo dhowrson sida darteed dadka qaar waxa ay leeyihiin waxa ka waalay Sharma Boy daroogada uu isticmaalo oo uu buuf isku riday manajirta ayaa leeyahay waxad guduba oo uu ku sameeyay wiilka la maslax mideeye ee reer Djibouti ee beesha Ciisaha u dhashay Sharma Boy ayaa hore waxa uu aaday dalka Zambia halkaasi oo la rabay inuu ganacsi ka sameesto laakiin waxa uu dilay oo toore ku dhiftay oo uu dhaawacay wiil ay isku jifo hoose yihiin oo darawal u ahaa oo gaariga u waday oo ku soo dhaweey dalkaas kaas oo caawinayay muddo dheer taasina waxay sababtay in ugu dambeyn dadkii tolkiisa ahaa isu tageen laguna qanciyay inuu dib ugu laabto dalka Sharma Boy oo atiikan magaalada Muqdisho cabsi uu qaba dartii ayaa iminka waxa uu ku nool yahay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waa markii ugu horeysay ee Sharma Boy uu cadeystay laba arrin oo dhaqanka Soomaalida aan caadi ka ahayn waa markii koowaad inuu soo istaagay oo uu yiri gabadhii asluubta badneed ee quruxda badneed waan furay oo waa kala tagnay ayadoo waliba bilooyin kaliya dhalan sidoo kalena arrin la yaab la ay noqotay inuu cadeystay xantii suuqa ku jirtay ay ahayd in maslax uu ka hinaasay oo gabadhu qabo uga hinaasay wuxuuna sheegay in maslax mideeye uu qiyaamay oo uu ka carsan doono isagoo waliba xusay inay saaxiibo yihiin daawadayaal intaas ayuu nuugu eg yahay barnaamijkeenii aan uga hadlaynay jawaabta culus ee milyuunmaanka ay siisay Daahir Cali Sow dhawaan waxa inii soo socda waraysi xiiso badan oo aan la yeeshay Sharma Boy muuqaalka like saar kana mid noqo kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka dhawaanna ha moogaanina sida aan idin sheegay waraysi gaar ah ee Sharma Boy aan ka qaaday midda koowaad waxa waaye Cabdinaasir Sharmaake intuu meel soo fariistay ma dhalin ma dhihin ma fahanti midda labaad waxa waaye intaad ma arkin oo sawir ah soo dul saartay iyo waxa soo dul saartay kulli warka aawdi meela ka keentay aniga ma sheegi karin ee meela kala timi laakiin Cabdinaasir Sharmaake ma dhihin ma dhalin alxamdulillah aabihiis waaye wiilkiisu jecel yahay inuu ku faraxsan yahay ee waana curadkiisii marka abti adiga meelaad ka keensatay waxaan aan sheegaysid oo dhiigu ka baaraya iyo DNA uu ka baaraya iyo maxay ii sheeg waxaas meelaad ka keensatay horta aniga ma sheegi kari laakiin waxaan ku sheegayaa wiilkayga yarka oo saqiirka oo maskiinka ah waxa aan wadid iyo balaayadan aan wadid ha soo dhixgelinin